Okay, waxaa kale u baahanahay pivot by arrow waa soo qaaday pivot by month waxba kamaana sameynin kan kad soo dheh asagana kan kama sareynayo precise eh category asagana soo qaad precise eh intaada qaadan x control x into can okay laba maraa soo koobiyey kamia delete them key figures meeshooda ha yaalaan by district meel muu heli karnaa by district so control x inta imo marka hadda arrange garaynaynaa waxaa inta lahaan doona key figureska meeshaan slicerska lahaan doona so marka qaybahan inaan isla ekeysiino idbs by category kor inuu imaado waaye trends course tagi doonaa labadana isbarbar dhigaynaa kan aad u resize garay kana sidoo kale aad u resize garay adoona aad ma sii yareynaynin kan kor soo qaad kan soo dhaweey kan kor soo qaad kan soo dhaweey background digeenaan inuu bedelnaado waaye intaan arki karno un inuu noqdo waaye dashboardkeena light blue okay meeshaan waxaa dhahdaa total families hoosna equal soo dheh waxaan equal u leenahay waxaan rabnaa key figureska inaan soo qabno total families equal okay then waxaan u baahanahay inuu black ahaado we need this one to be black uu yahay yaweynay 14 camal macquul waaye comma geli 00 ka bixi total families meeshaan imo total payrolls equal key figureska ku dhufo korkiisa kan formatka uu leeyahay sabqaas format inta kan ku dhufo wuu isir qarinayaa inta kala fur kala kliksi kan soo resize garay good inta u jiidaya weliba waxaan u baahannahay inay kulligood meeshaan kasoo wada muuqdaan soo maha inta wax yar u dhaweey kan wax yar inta u dhaweey isku dhawaadaan kan kor u soo qaad intuu ku fit garoobi karaa
meeshaan uga kaada resize garay marka resize garaynaysa chartsigaaga dhinacyadan kuuskuusan ka qabo dhinaca ka qabatid waa resize garayn kartaa wax problem ma laha muhiimada waxaa anaga inaa meesha aan wada leekaysiino si waxaan kaaga sii yaraadaan meeshaan dhag iska siisii resize gareeyay naftirkiisa oo helno format kadibna intaan leekaysii meeshaan kan soo qaad soo geli good kulli waa soo wada qaadnaa jeclahay haddaan dib ugu noqono mid ka dhiman oo markii horena aan ka tagnay wuxuu ahaa by month ma mid u abuurno no analyze pivot column-kan u abuurno kadib January February March April May June laakiin waxaan u baahnayn inay kulli meeshaan ka wada muuqdaan si aan usoo celino filterkeena field listiga dooro kadib waxaa meeshaan ka bixisaa families ma baahnayn family takeen hide oo kana tir waxaan leenahay IDBs monthly arrivals in 2017 sanadkii inaan sheegno waayo daatadan waxay ku filter garaysan tahay 2017 oo keliya waa sanadkii ay daatadeena noo soo marayso laaska imo daatada kusoo dar and I mean data labelka dooro magacyadii bilaha oo isku wada xigaan January February March April May June IDBs astan small kadhig monthly arrivals in 2017 grid lineskan ku jira ka bixi kan asaga soo wada qaad exo leh interactive kulli kuwaas ka close garay meelahan keena inta badan district iyo region inay soo simaadaan ay ku fiican tahay regionka weliba koraysii hadayna isgarab oolin oo inay iska dhow yihiin meel isku dhow ay yaalaan resize this one resize gareeya soo shaqada ugu badan waxa kaa cunaya waxaan inaad resize garaysid oo isla leekaysiisid waaye marka inaad dulqaad u lahaatid waaye okay daatadan almost waa wada keena daatadan dhan laakiin waxaa meesha ka maqan waa maxay interactive-kii iyo wixii aan sheegayn xaguu ka baxay waa inaa isweydiinaysa xilligaas ama waa u dhownahay inaan interactive aan waxa dhan isku xirxirno daatadan marka si aan hal meel aan u online gareyno oo iswada la haysiino saddexda ugu koreysa aan doorto saddexda ugu koreysa dooro kadib formatag waxaa dhahdaa align top okay align top aan dhahnay laakiin hoos ay ku kala hareen haddana okay hadda isku wada dhow yihiin saddexdaana dooro align top
good. Slicers markaan soo gelinayna chartyada chart kamida dooro kadibna waxaad tagtaa analyze insert slicer insert slicer markaa dhahdo wuxuu ku keenayaa fieldiyadaadi dhan headerskaagi oo datada marka waxaa u baahan tahay inaad meeshaan ka dooratid haddaa hal dooratid hal slicer kuu sameynaa haddaa labo dooratid laba slicer kuu sameynaa marka dhowran dooran doonaa waxaan dooranaynaa category settlement sidoo kalena region aan doorano saddexdan markaan doorano saddex slicer una siinaya saddexdan slicer sida u kala haboon yihiin aan iskugu geyno meeshan waxaa fariisan karaa settlement type waxaa ku xijinaynaa categorization resize garee weli booska uu ku jiryahay kan soo seke kan soo seke kan markaad kala fidi wax yar hoos soo qaad si uu leekaada ugu dhawaada kan weli waan resize gareyn karnaa categorization kan inta keen resize garee kan leekaysii hoos noojin okay hadda labadan waa isku keen agyeelaan region kan sidoo kale isaga dhinacan kasoo jiid region ilaa hoos uu iska haysan karaa waayo wax kaloo ka dambeeya malan laakiin soo resize garee liftirkiisa daatadeena hala sinaado okay resizingka waqtiga ugu badan kaa qaadanayo daatadaada inaad ku qurxisid aad u baahanta waana muhiim ah waay okay marka hadda meeshaan marayno waxaan sameynay titlean daatadeena u sameynay waxaan soo qaadanay jaartiyadii dhan oo aan pivot tables ku abuurnay kan waxaan dhahnay waxa waaye site type-ka ama settlement kan waa categorizationka kan waa regionki kan waa districti kan waa yearly trends kan waa monthly hadda almost waxaan haysanaa 6 graphs oo kala duwan muhiimada aan ka leenahay interactive dashboard micnaheedu waxa waaye haddii aan planet site hadda aan click ku siiyo maxaa isbedelaya kulli isma bedeli doonaa hal mid oo kamid ah inuu isbedelo badan tahay waa kan settlementiga uu ku xiran laakiin anaga waxaan rabnaa markaa kan ku dhufano inay kulli iswada bedelaan oo isku wada xiran yihiin okay si aan u gaarno higsigaas aan rabno inuu daatadan interactive noqoto kan dooro marka aad dooratid waxa ku imaanaya slicer tools oo cusub korkaaga soo baxaya kan aan furba meeshan si aan mar walba u aragtaan kulli hadda slicer kan uu dooran yahay waxaan ku sii dhuftay options markaan ku dhuftay dhowr nooc baan sameyn karaa sliceradan haddaan rabo inaan colorka ka bedelo waa ka bedeli karaa haddaan rabo midkan aan dooran karaa haddaan rabo midkan aan dooran karaa kana wax qurxoon way okay kulli aan ka wada dhiga kan tag kan ku dhufo kan okay designkii waan bedelnay designkan kalaan saarnay laakiin markii hore waxaan rabnay in ay kulli isku wada xirxiran yihiin settlementiga aan ku xirno 6dan xabba meesha ka muuqdo settlement dooro kadib report connections tag report connections marka aad ku dhufatid report connections marka aad ku dhufatid wuxuu kuu soo saarayaa boxkan hadda si fiican u akhri kan ugu horeeya haddaa xasuusatid waxaan sameynay pivot table walba aan sameynayn magacaan u bixinay sheetka uu ku jirana magacaan u bixinay oo mid walbana aan pivot ka hormarinaynin pivot by region pivot key and figures pivot by category by district by month waxaas dhan waan soo sameynay marka haddaa aragtid checkbox ku wuxuu saaran yahay settlementiga keli ah oo kan ah
meeshan oo yaala laakiin kulli waxaan rabaa inuu la shaqeeyo aniga oo xitaa ay ku jirto key figureska maxaa noo ahaa total families iyo total individuals okay hadda marka haddaa planner site doorto waa inay kulli iswada bedelaan okay hadda maaragtaa planner site markaan doorto inay kulli xitaa total familieska isbedelaan haddaa rabtid inaa dib uga noqotid clear filterkan oo kor ku yaala oo x-kas guduudka camal ah ku dhufanaysaa meesheeda kugu soo noqonay okay hadda spontaneous hadaan ku dhuftaas maxaa isbedelaya inta spontaneous uu iga doortay intii spontaneous ah uu gooni u doortay laakiin aan waxaan rabaa labadan ama saddexdan kalena inaan ku sii daro waayo hadda report connectionska waxaan u furnay oo inuu interactive noqdo kan keliya slicer kan keliya slicerada kalena inuu la shaqeeyaan rabnaa slicerskan kale category tag report connections doora asagana kulli checkbox ka saar waxaan ognahay kulli inay yihiin pivot tableadeena kan ugu horeeya waxaa pivot key figures sheetku uu ku jiro magaciisa waxaan dhihi jirnay key figures inta fiiri sheetkan waxaan leeyahay key figures aa lahaa pivotkana magacaan u bixino waxaa pivot key figures pivot by category magaca categoryga oo pivot table ka la dhahaa sheetka uu ku jiro ama worksheetka uu ku jirana waxaa la pivot by cat meelahan ka eg pivot by cat waa kana asagana okay good okay marka kan hadda asagana regionka imo regionka si kale oo ka duwan aan ku sameyn right click the region korkiisa report connections asagana sidaas noo ku tagi kartaa labada nooc baa lagu tagi karaa options noo ka dooran kartaa kulli checkbox kooda saar okay hadda marka si datadan inay shaqeynayso aan 100% u hubino planner site dooro asoo datada saas kugu filter garaysan haddana filter kale oo rural ah sii raaci way sii yaraanaysaa datadaada hoos haddaan inta u socono region kee inta region ay hoos dhan oo kalarada ka bedelan yihiin wax oo rural ah ma lahan haddaan banaadir kaliya doorto hadda inta muqdisho kaxda soo baxaysa oo districtiga ahayd korna banaadir kaliya waaye IDBs by category rural oo banaadir kusii filter garaysan rural kasii ah haddii aad rabtid beri abanoka haddaa rabtid laba inaad isku dooratid waa dooran kartaa labadooda control qaba haddaa controlka oo computerkaaga qabo banaadir iyo waxaan rabaa bio kale iyo hiiraan iyo bari kulli marka qofka oo maamulaha ah ama qofkii doonaya markaas oo kale in analysis degdeg ah uu sameeyo meel gooniha uu ku sameeyo si sahlan uu sameyn karaa hadduu datadiisa interactive tahay okay maxaa naga dhiman waxaa naga dhiman oo keli ah inaan timeline kusoo darno timeline sida aan ugu soo darnay slicerka oo kale aan ugu soo darayna slicer iyo timeline isku nooca loogu daraa mid kamid ah dooro graafyadan marka aad doorato analyze ka tag insert slicer haddaan dhaho waa soo gelin karaa mar kale options kale oo isiinaya laakiin hadda ani ma rabo slicer waxaan rabaa inaan graph doorto graph markaan doortana kadib aan dhaho insert timeline waxaa keliya ee ku jiraya waxaa waaye wixii date ah anaga datadeena date-ka keli ah ee ku jira waxa ayaan estimated arrival date so marka tii kaliya soo qabanaya haddii laakiin create registration arrival date waxaas dhan ay ku jiraan uu ku soo qaban lahaa so marka dooro okay boxkan uu ku keenaya asagana boxkan wuxuu ku habboon yahay meelahan oo kale fariisan karaa good marka haddaa si u fiiris boxkan wixii dhanaa ku wada jira options asagana leeyahay stylean ka dooran horta stylekan okay laakiin anaga waxa aan rabno aan ka sii doorano meeshan anaga bil iyo waxaas ma rabno sanad kaliya aan rabnaa sanad kaliya helno all period meesha ku qortay haddana month meeshaan ku soo qoran maaragta meeshaas ku dhufo waxaa ku qoran years quarter iyo month anaga years kaliya rabnaa sanadaha kaliya meeshaan marka aad joogtid
waxaa ka qaada header ma u baahanahay estimated arrival date magacaan aan ka dhigno year arrival year arrival by year enter header kan uu baxaya arrival year keena inuu baxa marna soo celi scroll barka u baahanahay time kam u baahanahay selection label kam u baahanahay hadda meesha uu ku fariisan karaa caadi ugu fadhiyaa meeshan okay hoos waxay u soo jiid kan faa'iido asagana noo leeyahay waxa waaye datadeena ina by year u soo qabano 2017 kaliya datadeeda ina doorato hadaa rabtid 2017 aan ku dhufanay 16 kaliya ina rabtid hadaa ku dhuftid datadeeda ku soo qabana laakiin sababta ma taqaanaa oo kan kaliya ugu xiran yahay wuxuu rabaa asagana ina kulli ku wada xirno rabaa okay filterka ka bixi markuu asaga ku dooran yahay options ka tag options kan marka aad tagtid waxa ka sii doorataa report connections marka ku doorato asaga hada settlement kaliya ku xiran kulli ku xir hada 2017 hadaan aan ku dhufto IDB by site kaliya isma bedelayaan kulli is bedelayaan aragtaa 2017 kaliya hadaan ku dhufto okay here's 2015 kaliya hadaan ku dhufto sababta oo meeshan IDBs monthly arrivals u baxday ma fahmaysaa waayo monthligan wuxuu ku filter gareysnaa oo kaliya 2017 hadda 2017 hadaan ku dhufto 2017 meeshan waa soo galayaan laakiin 2016 anaga monthly dhan maana ka soo qaadan okay marka inta fiirisidna kana yearly trends noo ah 2016 uu ku soo qabanaya okay fiir lambarkan oo 2016 ka 59,000 eber 22 meeshan waxa total families ku ah 59,000 eber 22 good hadii aragtid ina laba isku dooratid saan isku dooro mouse-ka ku dooro saddex sano wada dooro datadeed 2015 16 17 waa ku soo qabana kan hadii aan 2017 ka reebno waa haraya okay filterka ka bixi filterka faa'iidadu leeyahay waa kaas ah dashboard interactive ana hadaa maqashid waa dashboardka noocaan oo kala ah waxaan maraynaa gabagabadii meel fiican aan soo gaarsiinay intii la socotayna aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaan u maleynayaa inaa ku faraxsantiin inaa shaqo wanaagsan qabatay oo hadda aad baratay sida loo sameeyo